marti sharafta qaybaheeda kala duwan bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaan idinku salaamayaa qof walba maqaamkiisa anigoo aan kala qaadqaadaynin oo xafladatan martida inoogu yahay intaa ka bacdi maxamed baa sheegay dulucda barnaamijkeennan barnaamijkan waxaa la yidhahaa mahadsanid macmiil waa barnaamij ay shirkaddu ugu tala gashay inay macaamiisheeda wax ku celiso habeenkiisii labaadna aanu caawa ku qabanayno caasimadda gobolka Karkaar ee Qardho ma aha markii ugu horeysay ee ay shirkaddu barnaamij noocan qabato hore waxay macaamiisheedu markhaanti ka ahaayeen in aanu qabanay barnaamijkii la oran jiray abaal 1 iyo abaal 2 oo aanu sanadihii 2022 iyo 2023 soo qabanay kuwaasoo lagu guuleysanayay hadiyado runtii aad u tiro badan oo ay ka mid ahaayeen gawaari iyo bajaaj oo dadkii waqtigaa ku guuleystay maaragtay ay ku anficeen bulshadoodii iyo qoysaskoodii shaqo abuurna ay ka samaysteen barnaamijkeena caawa inuu madlanahay oo habeenkiisii labaad ah waa barnaamij lagu guuleysanayo hadiyado kala duwan sida gawaari aan cidina kaaga horeyn oo cusub telefoonno qaaliya aqal ama guri dhammaystiran oo maaragtay sariirtii iyo ka kooban sidoo kale waxaa lagu guuleysanayaa telefoonada noocyadooda kala duwan barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalay inaan nahno macaamiisheeda waad mahadsantihiin waad ku mahadsantihiin inaad doorateen adeegayaga annaguna waxaan idinku mahad celinaynaa adeeg tayo leh oo aad ku qanacdaan marka koowaad marka labaadna waxaan idinku mahad celinaynaa barnaamij maaragtay ah mahad celin oo aad ku guuleysanaysaan hadiyado qaaliya sida tan aynu caawa madlanahay barnaamijkani waa barnaamij usbuuclo ah oo aanu si usbuuclo ah ugu talagalay in maaragtay hadiyado kala duwan lagu guuleysto waxaa noo farxad ah guuleystihii usbuucii hore in uu caawa halka inala joogo oo uu reer Qardhood ahaa oo xafladan maaragtay marti inoo ku yahay isagana waxaanu siin doonaa kelmadiisa maaragtay iyo qaabkii uu guuleystay isuu inooga warbixiyo barnaamijkan sidaan sheegay waa usbuuc walba waa la guuleysan doonaa caawa waxaa lagu guuleysan doonaa 2 hadiyadood oo ah telefoon iPhone 16 Pro Max ah iyo sidoo kale telefoon Samsung ah si marka labada guuleystay aynu helo waxaan ku casumi doonaa gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolka si ay inoo ku soo gudoomiyaha xigeenka gobolka si ay inoo ku soo saaraan labada guuleystay barnaamijku waa barnaamij daahfuran waxaan idinku yeernay si aad markhaanti uga noqotaan oo halkaas laga daari doonaa waxay noo soo baxay labada guuleystay meel ay joogaan ma naqaano calafkooda ay qaadi doonaa waxa dhici karta in goobteena la joogaan markay noo soo saaraan barnaamijka la wareejiyo waynu la xiriiri doonaa gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenku waxay la xiriiri doonaa mid walba qofkii uu soo saaray meesha uu joogo wuxuu la wadaagi doonaa hadiyada uu ku guuleystay mar labaad iyo mar saddexaad waad ku mahadsantihiin inaad xafladan quruxda badan nagala soo qayb gashaan way idinka mahad celinaynaa waqtigiina qiimaha badan ee aad soo siiseen soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh si aad uga mid noqotid guuleystayaasha raac talaabooyinkan ku shubo ugu yaraan 0.5 ama ka badan waa in lambarka aad lacagta ku shubanaysid aad adigu ku diiwaan gashan tahay lacag ku shubashadu waa inay dhacdaa isla toddobaadka gudihiisa macmiil isticmaal adeegyada Somtel si aad uga mid noqotid guuleystayaasha helaya abaalmarinada aan xad ka lahayn